nashqadyahana u dhashay waddanka Ruushka ayaa waxa ay diyaariyeen naqshada dhismo weyn oo ka kooban ilaa 43 dabaq isla markaasna dhererkiisu yahay ilaa 800 oo feet. Naqshadeeyo u dhashay waddanka Ruushka oo lagu magacaabo Alegas Wishanfeski ayaa waxa uu salka u dhigay naqshadeynta dhismo aad u dheer oo ka samaysan astaanta qaranka ee waddanka Djibouti. Dhismayaashan ayaa waxaa loogu magacdaray Djibouti Towers sida ay muujinayso naqshadiisu. Dhismahan oo dhererkiisu dhan yahay 800 oo feet waxa uu ka kooban yahay naqshad ahaan 43 dabaq. Ikhtiraca naqshadan dhismaha Djibouti Towers oo Ruushka lagu nashqadeeyay waxa uu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee ka mid ah dhismayaasha aadka u dhaadheer ee dunida, kuwaasi oo xambaarsan astaan dawladeed ama astaan qaran oo dal uu leeyahay. Mashruuca naqshadiisa la dhammaystiray ee la soo bandhigay waxa ansixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, waxaana sidoo kale dawladdiisu ay bixisay dhul loo qoondeeyay in laga dhiso oo ku yaala xeebta caasimadda Djibouti. Mashruucan Djibouti Towers oo xambaarsan hal-abuur heer sare ah waxa uu ka kooban yahay 3 minaaradood oo isgarab yaala. Xidigta ku taala qaybta kore waxay astaan u tahay midnimada ummadda Djibouti. Labada minaaradood ee dhismaha dhexe hareeraha ka xigana waxaa loo nashqadeeyay sida bilaawaha ama golxobka oo kale, waana mid ka mid ah agabka dhaqan ee reer Djibouti ay leeyihiin. Xaruntani naqshad ahaan la soo bandhigay ayaa waxa ay yeelan doontaa goobo ganacsi oo fara badan, meelo shirarka caalamiga ay ka dhacaan, goobaha dhaqanka iyo dalxiiska ku wacan oo soo jiidan karaysa dalxiisayaasha caalamka iyo kuwa ka yimaada wadamada qaaradda Afrika iyo gobolka Geeska Afrika. Haddii uu hirgalana waxaa la rajaynayaa in ilahaasi dhaqaale ee goobtaasi ka soo baxaysa ay ku soo biirto kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka Djibouti oo ah dalka ugu yar Geeska Afrika. haddii aad ku xiran tahay channelkayga fadlan subscribe saar oo ku soo bir mahadsanid.